بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو أنا ونكسن أصحاب تقاليد أكسر وهذا يوتيوب كي شكري اللبا كتوس مركلة فيديو عصب أيانكو كل مينا channel هذا كو عصب تهاي فيديو أنا وياكيكو جوري وحكا عصنا channel كنا سبسكرايب يسارت فيديو أنا إيه لايك رئيسو شير كريسو أصحاب هذا ألو ذاكتو وأنكم أصلا تهاي داوشة الفيديو يا شيدا ما أنتو حايدين ولا سيد عادة نوهبا فيديو عصب انتانا فيديو وقدر كلنا سيد عادة نوهبا وحكو بلا والناس اللي جنبيga يقول صلي رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد هذا شيكدنا أنا بالعرض ما عند شيكدنا وشيكو ليابكيد iyo maxal laha wadato waxa in ka dhacday wadanka Suuriya gaar ahaan magaalada Dimashq ee ka dhacday suuq la dhaho suuqal Xamidiya suuq la dhaho suuqaas waxa la bariyo hore wuxuu ahaa Allah suuq weyn oo magaalada Dimashq iyo Suuriya dhanba suuq caanka oo suuq weyn ah xataa mararka qaar wuxuu ahaa suuqyasha caalamka oo loogu soo adeega taga kamid ayuu ahaa suuqaas waxa ka dhacday marka qiso sanadku markuu ahaa 1998 ay halkaas qiso ka dhacday qisadaas waxa suuqaasi dukaan yar oo ganacsi waxa ku dhex lahaa nin la dhaho Abu Cabdo wuxuu ahaa nin waayeel adeeg kontomeeye jiro oo kontomeeyada markaas dhameenayo marka wuxuu lahaa dukaan yar oo aad u yar xataa 4 mitir aan dhameen wuxuu ku lahaa suuqa dhexdiisa alaabooyin wax uga gadan jiray suuqiisaas iyo dukaanku aad ciriiriso ugu yahay mararka qaarkood xitaa banaanka kursi iska dhigan jiray dadka markay arkaan Abu Cabdo waxay u haysteen inuu yahay ninkan uu yahay nin maxal lahaye nin faqiir waxba haysanin oo la daaladacayo nolol maalmeedkiisa nin la daaladacayo loo arkay laakiin taasoo ka dib runtu wuxuu ahaa ninka ugu taajirsan suuqaas la dhaho Xamidiya ninka ugu taajirsan buu kamid ahaa laakiin taajirnimadiisu meena muuqan dadku waxay xisdi jireen oo odayska waayeen nolol maalmeedkiisa la daaladacayo laakiin saas muusan ahayn odaygaas wuxuu ahaa odaga ugu taajirsan meeshaas ganacsiyasha meeshaas ku yaala ninka ugu taajirsan uu ahaa wuxuu sameyn jiray marka ganacsigan yar dukaanka uu ku haysto waxba ku hoos dugnaa wuxuu sameyn jiray wuxuu ahaa nin dadka ribo ayuu sameyn jiray macnaha ganacsigiisa wuxuu ganacsi ribo مثلا wuxuu sameyn jiray waxa uu imaan jiray dadka danta leh oo macnaha dadka مثلا أنا ما أنت وح أبهنا هاي العق ميلا حكينا واي وحول بوان سمي إيران مري دولا مري دقالة أبهنا هاي ميلا وحي حكينا واي وذاك سأتجايا وقصود دين سنايا مرة قصود دين سدو العقد صحيح وإذا قرنا صحيح اسمك قال قرنا هذا العقد هذا سوء الوسيء المحكمة ده اللي قاصد دعوين اللي غفراء إلا حوالي حكين تذو كلته أما هذا أقول لا أقول يبين العقد ربا والعقد فضول صار مثل هذا كون قاسي العقد تقصي كرسا إن الله أنت ردت ولا عجنا وعد البنك هذا أهل $5,000 ربا وكسينا لكن صحيح حكى القرآن يصير صحيح حس وقت يقبل أنت هذا كان ويسد أسكرت كوسة دعوينا والوحيرة أما العقد ده قول هذا وحكى له سلاج ساس عمر مرك كلي waxa uu tagi jiray dadka muctaadka oo macnaha u baahan oo markay irdahdan ka soo xirmaan irid ay garaacaan oo kale markay waayaan qofkii dantiina macnaha meel waxa keena waayo unba soo aadi jiray marka habeenada kamida baa waxa uu imaaday wiil dhalinyaro oo wiil dheer oo dhalinyaraha uu imaaday oo ku jiro 20meeyada dhexdeeda ku jira uu imaaday wiilka kursiga soo qaatay waa soo fariistay markuu soo fariistay cabaar wada hadleen kadib hadalku arintii ka taagantay way murmeen markay murmeen dariska ku soo baxay dukaamada kale oo dariska ku soo baxeen waalda dhaxaadiyay wiilkii waa la wada dariska kamid ahaa baa wuxuu dhahay soo bax wiilkii waday markii wiilku wada wuxuu yiri ii waran bal fariiso wiilkii waxa ka muuqatay inuu aad u xanaaqsan yahay oo maxal dhahay xanaaq zayd oo ka muuqday meeshii fariisay marka shaahu u soo shubay oo shaaha waraq nacnac lagu daro casaabku dajiyaha laha shaaha loo soo shubay wuxuu dhahay bal ii waran maxay qasadaada adiga ninkan maxaa idinka dhaxeeyo odaga sidii meesha ku weydiiyay markaas wuxuu ku dhahay يا أدر wuxuu dhahay wiilka markuu cabaar meesha fadhiyo wuxuu dhahay ma taqaanayo dhahay Abu Sabri ma ka soo dhahay markaas wuxuu dhahay Abu Sabri yaa waa Abu Sabri markaas uu dhahay Abu Sabri ma taqaanid miya oo gaaslaha gaaska wareej gaaska gadi jiray markaas uu yiri wuu dhintay Ilaahay u naxariisto maxaa dhacay markaas uu dhahay waxa uu dhahay wiilkiisa Sabriyaan uu dhahay hay maxay too dhahay qasadaada Ilaahay dib kuma tusay maxaa dhacay
wuxuu dhahay aniga sabriya dhaluu dhahay sababtay aabe wuxuu ahay u dhahay gaaskaas uu gadi jiro dhahay gaaska marka sida gaar dameerka markii kareetada gadaal la saaro bahashaas camal oo aabe haystay wuxuu haystay dhahay faraskaas oo marka gaariga faraskaas uu ku wadi jiray oo gaasku meelaha geeyeen jiray laamiga haba meesha isla waxa laga haba meel u tagi jiray macnaha gaaska saas uu ku wadi jiray faraskaas uu ku gadi jiray maalmaha kamid uu dhahay marka faraskii baa dhintay u dhahay uu baqtiyay macnaha faraskii markuu baqtiyay aabe xaaladda aad ay ugu cakirantuu dhahay meel wax ka keeno waayay wax kasta wuu raadshay meel uu u dhaqaaqo wuu waayay ilaan kareetada bahasha taayirada lagu reexana ma reexi karo dhahay waa qof waayeel waayo meel wax ka keeno male annaga nolosheena way cakirantay danta wixii ku qasabtuu dhahay marka inuu wax uun sameeyo waxay doonaanba ha ahaadaan almuhiim wuxuu dhahay marka aabe waa wuxuu dhahay erid kasta way kasoo xirotay dhahay hortiisa xaaladuna anaga way nagu sii adkaanayeen wax kale uu sameeyeen maysan jirin markaas wuxuu sameeyay dhahay aabe wuxuu dhahay wuxuu u tagay dhahay odagii oo Abu Cabdu ahaa oo suuqa jooga oo ganacsiga ribada haystay odagaas u tagay dhahay wuxuu dhuyeenay waxa rabaa dhinac lacag inay siisid lacag deymi dambe waxay ka dhintay faras rabaa u dhahay inaa ku soo gato mideeda kale tan lacag kale tan uu ka qaatay oo dad badan waxay ku lahaayeen deymo kala duwan meel kala duwan deymo looga lahaa marka wuxuu isdhahay intii 5 qofood 6 qofood ee deyn kugu lahaa lahayd inta asaga ka qaaday lacag 5 qofood si asaga kaliis ku soo har asaga le u yar markaas wixiisa asaga la sii saas uu ku fikray odagan wax ma tiidaba asaga hadda ka dalbatid 100 milyan wuu ku siinaa asaga haduu soo kaaga qaato yaqaana mana naxaa lagu dhahay mana naxariisto hadaa maanta ooynaysid ولا سنت كام بدي ما العكس وهو كربة بس ما ترى حدا نفط بيك سامع العيال سيقول الشباب مركا ما ننحو أسعدنا ومن حرستو إلى يخف كان حرس إلى ومن حرست الله إلى ومن حرست أنا قاعد مركا نكسر سوء هاي الله مركا لعقتي وكقاتي دمرك وساقتي كده ما كلها أنا وسي وحودها هذا اللي جوهر هذا اللي دين ولا وده بس waxaa dhacday marka odaga uu iska baxay dameerkiisu iska soo gatay shaqadiisii oo bilowday laakiin odagii uu wadi waayay shaqadii مثلا هذا subaxdii intuu kaco maalinka salaada fajarka markii la dukanayo intuu ka kaco wuxuu soo yeeday habeenka saqda dhexe waxa laga yaabaa in 1 saac 2 saac hurdo kadib hadana subaxdii uu kaco oo dameerka wada faraskii xitaa wuu tibay faraskii aaba daalay oo shaqeyn waay xaafado u tagi jiro min xaafado kale bilaabay inuu geeyo inuu nacamso ninkan lacagtiisa yoomiya loo siinaa yoomiya marka uu si ciidina beelay ka rabaan beelkeedii soo saaro ninkan wixiisa uu ka siiyo rabaa marka si kasta haduu yeelo xataa haduu noloshiisa dhan haduu guriga degiyo haduu gadaxta lacagta deynta ama gudi karo because waa lacag kordhayso oo saaranta kunkiiba uu kun saaran yahay so haduu xitaa gurigiisa gada lacag uu gudi kara maaha inta uu nool yahay haduu si xataa xidhaaf u shaqeeyo lacagtaas weelo noolaan ma gudi karo because waa lacag xidhaaf ninkan waa nin iska masaakiin so waxaa dhacday marka odaga wuu ticbay fikirkii iyo deyntii ka fikirkeeda wuu daalay marka qaar maalminta ma wuxuu bilaabay xataa haduu 2 qof 3 qof wax ka soo iibiyo inuu guriga iska imaado oo wuxuu soo iibiyay uu daawo ku gato lacagtii ninkan way sii kordhay ilaa maalin kasta ma dhiibay mogtahay way isdul korkortay marka way ku bateen way isku dul korkoreen asagii fikirkii iyo wixii uu sameeyay uu soo dul dhacay odagii بس نينكي وتجي وقتي مركي لقار وحو إنه أسوع دارتو دونيه سانا جث أذقي أو حكم بلا بهند دا العقد السنين وحنتجا أنا جمرت حنتجا وقالوا حرة إلى أنت العقد أي قصين سمحنا وصوت عوين هذا صوت عوين إنك على قبنا وعلى الحرة إلا أنت العقد كينيست وقالوا حرة هالله مركو حدها وقصود عوين هذيك في العقد السين مقصود حداني وسانا وحجين حريص لعقدكم مسين كرو قرر عسود هاي مركاسو حدها هذا العقد دي بكرين waxaa dhahay Abu Cabdu waa ninka lacagta deynta dadka siiyo waa Abu Cabdu marka wuxuu ku dhahay Abu Sabri wuxuu ku dhahay hadaad lacag iska dhiibi karin ilaa hal shardi aan taa shardigaas aful sidoo dhahay aniga lacagta waa ka sugaa macna hadaa shardigaas sidoo dhahay waa ka sugaa lacagta hayo wuxuu dhahay muxuu yiri shardigaaga wuxuu dhahay shardigayga waxa waayo dhahay ina gabadhaada isisid wuxuu haystaa odagan marka oo Abu Sabri waxa uu joogto gabar yar oo 12 jir ah oo aad u qurux badan gabar yar waxa soo bixisay ninkan waa nin weyn oo kontameeyadiisii dhameenayo baqiil oo dhib badan waay oo qof kasta dadka dariska xitaa oo darisnimada bis ka dhaxayso salaam calaykum wa calaykum assalaam bis ka dhaxaysa maahan wax kale ixtiraam ma hayaan
marka wuxuu ku dhahay gabadhaada isii noodagu wuxuu ku dhahay maxaa kaa qaldan gabadheeda kuma siinaayey lacagtaada ku siinaa u dhahay lacagtaada iga sugu dhahay lacagtaada ku siinaa mayo dhahay kuma sugaayo aniga waa inaa lacagteeda isiisaa hadaada lacagtaada isiina gabadhaada inaa isiisaa intaasan kaaga sugi karaa adigo odagii wuu iska soo laabtay haddana ninkaadina markasta wuu handadaa wuxuu leeyahay waa ku xira hadduu xirana cidaan oo dhan faamiliga meeshaan degan indhaha u laabmaayo cid ka dambeysa oo wax siinaysa malaha waa oda weyn ninkaan xabsi maba xamili karo xitaa haddii la xiro meel ka keena ma yaqaano lacagtan xitaa hadiiba la xiro xitaa meel ka keena ma yaqaano soo waxaa dhacday marka ninkii wuu iska fikiray soo u fikiraya markii dambe wuxuu la tashtay xaaskiisa wuxuu ninka saas uu dhahoya halkaas dariiqa bisa lacagta kaaga qafiifin karaa uu dhahoya maxaa sameeya gabadha way maqashay marka aabeedu xabsi loo sii wado noloshoodii saan u cakiran aabiyo aan shaqayn kara wixii dhiska wada cakiran waxay tiri aaba raalli aan dhahday igu dar markaasuu ninkii ku laabtay ninkii wuxuu yiri gabadha isii hadaa gabadha isiisid igu mehersid wuxuu yiri weliba gabadhaada micnaha markaa guursanaya ma wadana ayuu dhahay warqad ahaan igu meheriyo dhahay meher bas igu meheri marka igu meherisid waan kaa sugaa lacagtii aan kaa sugaa markaa dhammaysid oo warqadda wixii dhan ay wadasidna gabadhaada waa kuu furahu markaasuu dhahay runtaay ahaa runteeda waa dhahay ma aroosay gabadhaada inaan xaflad samaysadoo isguursano waxaas dhan maahan u dhahay kaliya gabadhaada waa mehersanaa markaa mehersado lacagta markaa isiisidna wuxuu dhahay waa furaa odaga xoogaa wayla roonaata marka gabadhii wuxuu dhahay waxay tiri aaba dhib malahane siiyay tiri igu dar markaasuu dhahay may gabadhayde ma ahan u dhahay in oo ma arkin oo ku guursanayo wuxuu rabaa u dhahay in xaflad meher waa kugu meherina u dhahay lacagtiisa u raadina waa shaqeyna waa dadaala markaan lacagtiisa aan lacagtiisa dhan wada siina wuu ku furaa u dhahay hay dhib malahane dhahday sidii uu sameeyey odaga waa oo baxay gabadhii kusoo meheriyey gabadha madaxeedu soo siiyey wuu kusoo meheriyey markuu kusoo meheriyey wuxuu dhahay waa maxaa la lacagteeda aan kuu soo raadin markaa lacagteeda ku keen gabadheeda waa ifure hay waa hiida lacagteeda adi ii keen adila ii keen dhacan waa ku sugahay hay waa uu dhahay odaga gurigiisa u soo laabtay oo Abu Sabri ah marka gurigiisa u soo laabtay wuu walwalay wuxuu dhahay maxaa ka qaldana adiga maxay tahay ninka gabadhaada asiise ninka nuucaan ah oo wuxuu dhahay ribada cunaaya oo wuxuu dhahay gabadhaada yarta asiise xataa hadaa lacagta siisid gabadhaada uu furo mudalqad ay ku noqoto guriga waxa dhowtay yaa furaaldha odaga hebel haya soo furay maxaa waxaas ku galiyay odaga wuu isla hadlay lacagtina meel ka keenay ma yaqaano dana saasal dantu wallahi way dhibadantaa dana xirtay soo markuu uu saas soo walwalay habeenkii algaar uu iska seexday odaga soo walwalsan oo asaga dhan maxaa la maskaxdiisa dhan ba isku xirantu seexday subaxdii shaqo aadi jiray shaqadii muuse aadin markii la dhaafay waqtiga uu shaqada aadi jiray baa la soo kiciyay waxa la maxaa daaray maanta aaba shaqadina muuse aadin waqtiga shaqadiisa waa la dhaafay ha la soo kiciyo hadii loo tagayba odagii mar hore ay ka tagto oo dhintay ilaah u naxariisto waa meed because waxa lagu leeyahay adoo xanaaqsan hada siixatid mararka qaarkood ma wanaagsan halis ugu jirta inaad dhimatid adoo xanaaqsan soo waxa ku fiican aan dhahay inaadan xanaaqin oo inta salaada aad iska dukato quraanka iska akhriso gobolka faraha badan iska dajisid markaas kadib ina siixatid waa fiican aan dhahay adoo xanaaqsan oo zaaid xanaaqsan ina siixatid khatar aad u tahay المهم ninka wuu iska dhintay xaafadii subaxdii taxsiya u taalo taxsiyada markii la soo gabagabeeyay odaga la soo aasay Allah u naxariistay baa waxa taga wiilkii Sabri mas'uuliyadda ay saaran tahay waa marka Sabriya wuxuu sheekeynayaa mugtahay ninkii uga sheekeynayo dukaanlaha marka wuxuu dhahay hadda markuu aabahay dhintayna waa kan haddana u imaaday waxaan rabaa inuu walaashay ii furo lacagta mas'uuliyadda iyo wax dhan anay ugu soo wareegayaan anaa bixinayo waxbarashadeedu waa ka soo tagay anaa wuxuu dhahay lacagta ku raadinayo laakiin walaashay ii furo wuxuu yiri marka wuxuu leeyahay marka odagan kale oo Abdu wuxuu ku doodaa marka walaasha waa furaa hadda waa kana lacagtii diib lacagtii isii ii keen marka lacagtii ii soo wada aruuriso lacagtii furta iga soo saartay gabadhiina waa ku furaan just lacagtii kan hadda ma dhiibi kartaa kana lacag ma isma dhiibi karo wuu ogyahay inuu lacagtii dhiibi karo marka wuu ku xayiraa ma fahamtay bas المهم saas markuu dhahay wuu iska tagay wiilkii markuu iska tagana subaxdii dadka dhan way wada imaadeen ganacsatada dhan suuqa ay imaadeen dukaamadoodii la wada furay ilaa odagii Abu Cabdu ahaa dukaankiisa Muuse furay Abu Cabdu marka odagaan xaas ma qaba asaga ilmana ma dhalin wax la dhashay iyo wax waalida midna ma joogaan ereyda kaligiisa guriga nool kaligiisa iska shaqeysto shaqadiisa iyo wixii kaligiisa wato laakiin wala xaas ma qabo wala ilmana ma dhalin wax la dhashay iyo wuxuu dhalay midna lama arkin marka
ganacsatada subaxdii dukaamadii furteen aw cabdu ma lahan maaqan waxa abu cabdu loogu baxshay ilmo badhine dukaanka muusan furin abu cabdu dukaankiisa wuu xiran yahay ganacsatada way isweydiiyeen maxaa gaar maanta abu cabdu si laysku lahaa waa la iska kala aamusay maalintii kaleeta haddana la gaaray habeenka sidaa loo xiray odaga caadadiisa marka waxay maba xiri jiray dukaankiisa maalinkii qofka ugu horeeya furo waayo qofka ugu dambeeya xiruuna aha maalintii labaad la gaaray maalintii labaad markii la gaaray bardu dukaanka wuu xiran yahay war maxaa qaldan odagii maxaa ku daaqay dadku ma jecla ninkan ay ogyihiin qaabkii nolosha uu ku shaqaysto laakiin haddana ka jiiraan ahaan xaqi darsanimada ilaalinaya wiilashii u shaqaynaya odaya wuxuu u diray miilka nin u shaqaynaya u diray wuxuu dhahay or u tagoo soo fiiri oda cabdi guriga uga garaacdid weydii bal xaaladsi soo weydiiyo waxaa ku dhahdaa dadka dariska dukaanleyda kaa walwalsanaa xaaladaada see tahay soo dhahaa la soo ogow xaaladu ku sugan yahay gurigii ninkii gargaraacay wax ka furaya ma lahan guriga muu soo laabtay wuxuu dhahay ma garaaco waa wax iga furaya ma lahan dariskii way weydiiyeen waxay dhahay aniga ninkaa cilaaqa lama lihin mana aragnay meeshaas aan ku aragnaa wax cilaaqaa nagalama dhexeyso wixii ku dhacaan ma naqaano maalintii saddexaad ee bixin dadkii suuqleydaha guriga garaaceen wax furaya ma lahan cunug yaraa marka waxaa la dhahay kaboo darbiga cunug yaraa la bootiyey albaabkii furay waa la galay markii la galay albaabka ay sitaan waxay arkeen ur aad u qaramuun oo guriga kasoo baxayso war maxaa dhaca haddii la tagay qolka jiifka la tagay maashada ninkan waa meydba xataa jirkiisa yaa furmi tagayba waa u dhintay ilaahu naxariisto odaga abu cabdu aha dadka dariska haadee urti iyo wixii banaanka iska imaadeen askartay waceen booliska imaaday waxaa booliska la socday marka nin dambi baaraha taliyana ah oo micnaha ah dadka wax kasta inay xaliyaan ugu fududahay oo khatar ah ayaa la socday adinka maxaa ahayd inuu dhahay waxay dhahay anaga walaa dariskiisa oo ganacsigaa nahay marka waa ka walwalnay saasaa u imaana haddana aan guriga soo galna meydkiisaana kusoo aragnay dheheen haye ninka guduhu u galay maashada ninkan sariirtuu jiifaa markuu sariirta jiifo waxaa la arkay marka hore la arkay mindi ah waxay kaga taagan tahay dhabarka gadaal waxay tahay mindida ma loo jeedo way ku wada mirqsan tahay just meesha xoro afka daabka bisa ka muuqdo soo wuxuu dhahay maxaa ninkan dhiignana ma laha sariirta walaa dhulka wax dhiig ah ninkan kama soo baxin mindi un baa ku taagan ninkii wuu yaabay dadkii waxaa loo imaaday qolada oo dibi janaaciga la dhahaa loo wacay oo meedadkii wax isbaaraan waa la qaaday ninkii waxaa la geeyey meedada qaybtaasaa la geeyey dariskii waxa laga weydiiyey ninkaa muxuu ahaa qof kastaa wuxuu dhahaa wallahi ilaaha u naxariisto khayr iyo sharba wuu lahaa ilaaha u naxariisto dadkii marka ma rabaan inay ninkan midab u dhintay ceebtiisii sheegaan xantaan ma rabaan marka qof kastaa wuxuu leeyahay ilaaha asto ilaaha u naxariisto markii dambe wuxuu dhahaa waxaas ma rabaa anigu ninkii sheega ninkan muxuu ahaa yaa daris la ahaa oo ganacsigii waxaas markaas oo waxaa la yidhi hebel u taga kaaleeda ninkan wuxuu ahaa sheegaa la dhaha iiga warbixin iga siwila ninkan wuxuu ahaa nimankii mid kamida wuxuu dhahay walaahi ani wax ka sheega ma aqaan u dhahay waxba kama sheegi karo dhahay ama mid kaleeta wuxuu dhahay ninkan wuxuu ahaa nin saasa meeshaasuu ganacsi ku lahaa waxaa suuqa wuxuu ku shaqaysan jiray u sheegay lacagtaas dadka siin jiray saasaasuu ah waxaa la cadow ma laha cadow wuu lahaayuu dhahay oo dadka wuxuu ku samayn jiray intuu lacagta ka qaato deynta hadhowtadina inuu dacweeyo lacag dul saaran jiru dhaha marka inkastoo waxaan uu qaab sharciga u maraayay oo lala ogaa oo macnaha maxkamadda intuu tago warqad kasoo qaaday inuu qofkaas inuu deyn siiyo intaas ay tahay sharciyan uu ku dhiibaayo waxay doontaa ha u ahaatee war riba isaga dembi ha ku ahaatee laakiin dadku haddana intaasi kula ciloobayan dhaha marka dad badan uu cadow la ahaa markaasuu ninka taliyaha wuxuu dhahay inkastoo ninkan uu cadow badan inuu lahaa asheegu siin haddana wuxuu dhahay dee dadkii hoosoo dhan ma baari karno dhahay adinku hadda qof iyo laba ma ka carabaabi kartiin dadka u malaynaysiin inay cadowga dhow la ahaa ninkii midug wuxuu dhahay walaa ma aqaan dhahay midkii kale markuu wuxuu dhahay haa maalin dhaweeto habeen dhaweeto adiga marka uu 3 bari ka hor habeenka intuu sa dhiman habeenka ugu dambeysay suuqa baa waxa uu yimid wiil yar dhalinyaraha u imaaday oo isla doodeen marka uu imaana kasoo dhex galno kasoo kala wadnana wiilka saas ku andacoonayo dhahay yaa waa wiilkan ma aqaan dhahay laakiin aabihiisa aqaanaa allah naxariisto wuu dhintay Abu Sabri oo dhalay wiilka Abu Sabri la dhahaa aabihiis marka aabahaas aqaano dhahay askartii uu wacay wiilka Sabri la dhahaa askartii wuxuu dhahay keena ninka dambi baaraha wuxuu dhahay Sabri la soo qabto waa baxay Sabri la soo qabtay Sabri markii saas askartii ay ugu tageenba wuxuu dhahay yaan la jojoobin waxna yaan la qasbin ana qiranayo dambigayga ahligeeyo bash dambiga lagu baaraa way soo wadeen askartii waxay u keeneen ninkii waxa dambaariya loo keenay dambaariya markii loo keenay waxa la dhahay
haye adiga anaa rabo dhahay inaan qirto dambigayga ninkan anaa dilay ninka taliyaha wuxuu dhahay maama ogtaa maada qiranayso haa anaa qiranayo dhahay anaa dilay ninka hay soo fariisaa lama waxaa nooga sheekaysaa u dhaqaanka wuxuu dhaceen wuxuu dhahay aniga habeenkaas u imaado dhahay waxaan rabuu dhahay inuu walaasha ii furo lacagtaada anaa kuu keenayan ku dhahay kabacdina saasuu igu sameeyey dhahay wuu iga diiday lacagtii ii keen haddaa rabta inaan walaasha kuu furo dhahay kabacdi wuxuu dhahay waxaan suguu dhahay ilaa inta dadka dhan ay kala tagaan dadkii wuxuu dhahay markay kala tageen oo habeenka xil dambe ee noqotay odaga uu baxay oo gurigiisa taguu dhahay guriga markuu tagaa ka dabagaluu dhahay ilaa intuu ka seexdo aan suguu dhahay markuu seexday baan wuxuu dhahay si tartiiba intaa uu soo galo qolkiisa soo baaray qolkuu jiifta markaa arkay oo arkay inuu hurdaayo baan waxaan u tagu yiri asoo saas u hurdo saas oo macnaha inta saan asoo u jiifo aa u tagu dhahay oo hadda wuxuu dhahay si u hurdaayo dhahay raaxa leh u jiifo dhahay dadka u deymaha iyo wuxuu dhahay lacagta ku lahaa qaabkii u walwalooyaan iyo asaga si walwalaanta ugu jiifo baaba igu qasabtuu dhahay inaan dilo nacam anu wuxuu dhahay markii horeba inaan dilo waa u imaaduu dhahay laakiin haddana qaabka u jiifo oo kurbala-aanta ee markaa arkay baaba igu sii qaaduu dhahay inaan dilo marka waa u imaaduu dhahay saasaan mindida u geliyey oo aan dilay marka wuxuu la yaabay ninka oo dambaaraha wuxuu la yaabay ninkan la dilay hal dhiig ma lahan marka wuxuu isla hooyaa ma intuu dilay qofkan inta meel kale lagu soo dilay aa lasoo qaada aa sirrita lasoo dul saaray si askarta ugu malaysa ee meeshaan lagu dilay mase maxaa qaldan laanno qofka markii la dilo waxaa qasaba inuu qofka dhiig soo firdho oo darbiyaasha ku firdho qofkii dilo ku firdho carrada dhiig ay noqoto soomaa ilan qofka bini'aadamka dhiigaa la socdo ninkaas saas ma ahayn marka wuxuu dhahay markaa dishay dhiig ma ka imaanin miyaa ma meel kalea kusoo disho mise mayda sirta horkeeda ku jira anaa soo jiifaa u imaaday saasaan u diluu dhahay okay uu dhahay ninkii marka qolada dambibaarista oo iisii fadhiya u dhahay wuu baxay wuxuu tagay qoladii wuxuu tagay oo dambibaarayaasha u tagay oo dambi janaaciga oo dhiigga baaris u tagay wuxuu dhahay ninka maxaa rabaa u dhahay malafkiisi maxaa baaritaankiina maxay soo saartay markaas waxay dhaheen weli waxbaa noo dhiman ninkan mindiya dhabarka uga taalo laakiin weli sababta maana soo saarin liannu maadaama ninkan dee muddo dheer 3 beri jirkiisu uu isbedelay waqtiga qaadanaya dheheen sababta u dhintay markaasuu wuxuu dhahay aniga si degdega baan waxaan u rabaa sababtu ninkan u dhintay haye marka mideeda kale u dhahay ha isdhihinina ninkan mindida lagu dhiftay dhabarka u dhinto aniga qiso kale ka shakisanahay haye maxay tahay alla ma waxa ka wadaa because wuxuu dhahay ninka aniga qof ugu horeeyay aan markaan tagay baa arkuu dhahay sirrtu saarnaada ninkan hal dhiigana kama soo bixin u dhahay markaas waxay dhaheen waxaa u malaynaysaa in meel kale lagu soo dilay oo meesha la keenay markaasuu dhahay maya meeradan way ka weyn tahay arrin saas ma ahan ninka waxaa baartiin sababta uu ku dhintay baaruu dhahay sababtaasaa rabaa aniga oo mindidan iyo inuu ku dhintay shakigiin iyo qaadina arrintaa ka weynaato hay waxay dhaheen maxaa qaldan marka almuhiim marka ninkan maadaama uusan hal dhiiga lahayn oo hal dhiiga uusan ka soo bixin qof meel kale lagu soo dilay maaha muu ahaa oo meeshaa la keenay maya saas mahayn laakiin biqudratillaah qolada dibis sharciga markay soo saareen kii ninka dhakhtarka ninka taliyaha suu ka shakisnaaya noqotay waxay ahayd ninkan markuu wiilka inta u tago uuba mindida gelinayo mar hore dhintaba meedu ahaa odaga suu u soo socday gurigiisa markuu imaado oo sariirtaba seexdaba wadnaha istaagay naftu way ka baxday ninkan marka nin meedu u imaado oo mindida geliyaba maba dilinba asaga subxaan allah ilaahay markuu meel wax ka wada saas waa muqtaa subxaan allah wuu dilay ninkan marka asamaba dilinba soo dhinto imaado mindidoo geliyay baarista markay qoladii baareen waxay ogaadeen in ninkan wadna istaag uu u dhintay oo marka mindidan dhabarka laga geliyay la gelinayo oo meed ahaba oo mar horeeto oo dhintay ay ogaadeen qolada oo dibi janaaciga oo baaraysa dhimashada sababta baaraysa ninka wuxuu dhahay waa kasaasa ka shaqsanayo dhahay because wuxuu dhahay qofka markuu soo nool mindi la geliyo qasab inuu dhiig soo fanino waa laakiin ninkan markaa u tagay hal dhibic shaarkiisa waxyar oo mindida gashay waxyar oo dhiiga lahaa laakiin walaa sariirta walaa meel kaleta ma lahayn ninkii markuu soo ogaaday arrintaas waa uu soo baxay wuxuu imaaday wiilkii uu ahaa sabri wuxuu dhahay sabri hadda xaalkaaga waa sidee wuxuu dhahay wallaahi wax walba saas waayuu dhahay siil doon hala igu sameeyo halay cadibo halay daldalo wixii aan mutaystuu dhahay hala igu sameeyo oo laanna wuxuu dhahay aniga anaa fududaaday oo wuxuu dhahay aabbahay markuu dhintay kadib ciddeenna aniga waxay ahayd inaan cawad u noqdo oo aan macnaha booskii aabbahay u buuxiyo laakiin ninkaa markaa u tagay waa muranay oo walaashay inuu ii furo uu diido waxaasoo lacagana uu nagu soo dallacday
aniga waxaan ku dhahay go'aanka sinaan dilaan qaatay anaan qaldanaa faamilkeena ilaahay farajka laha u furu dhahay anigana hala idilo anaa diyaar ah u dhahay hala idilo ninkii marka wuu qosla taliyaa ahaa wuxuu dhahay maxaa ku qosashay wuxuu dhahay waxaan la yaabana u dhahay nasiibka idinka batay adiga iyo walaashaa iyo faamiligiina oo dhanba nasiibka aa leedihiin iyo maxaa tuu dhahay markaasuu wuxuu yidhi maxaa ka wadaa markaasuu wuxuu dhahay ma ogtuu dhahay ninka adiga maada dilin markaasuu wuxuu dhahay sabab markaasaa allahay ninkaan markaa dilaysa meed u ahay allah markaasuu dhahay allah gadaaluu ka fakira mugta wuxuu dhahay wallaahi sax waayo u dhaho anu wuxuu dhahay intaan guriga soo marmaraataa taagsa xataa aan sidhahay wuxuu ninkaan dhaqaaq ma sameeyay mideeda kale wuxuu dhahay markaa mindida ku dhiftay waxay ahayd u dhahay adlista xataa inuu xarakaado laakiin wax dhaqaaqa muusan muujin u dhahay meesha uu sii yaalay marka waaba u maleeyo dhahay markaasuu dhahay markaa mindida ku dhifatay walaa dhaqdhaqaaq walaa dhiig waxba ma soo hal xaba ma soo meeyno dhahay walaa dhiigaan dharkayga soo gaarin u dhahay walaa asagaan dhaqaaqin u dhahay sidiisii u jiifo u dhahay markaasuu dhahay wadnaha istaagay ka hortaa uu dhintuu dhahay keliya hadda adiga wuxuu dhahay waxaa maraysaa u dhahay ciqaabta oo macnaha ixtiraamka meydka ee xurmada meydka waxaa u maraysaa u dhahay xabsi galaysaa u dhahay intaasay waa u dhahay midda kaleeto walaashaa waxaa ugu bishaaraysaa u dhahay hantidii uu ninkan lahaayoo dhan in ayada ku wareegayso maadaama ayada xaaskiis ay aheed u dhahay oo walaa qof kale oo dhexlaaya uusan jirin waa yaab subxaan allah ka waran ilaahay meeshuu wax ka waday bal eeg waxa aayadda qur-aanka waxay ahayd waxaa jirto waxaa dhibsanaysid laakiin khayrku waa iyo waxaa rabtid oo shar ku tahay marka odag aabaheedaha gabadhaas walwalkii iyo ninka uu ku meheriyey ee lacagtaas walwalkeeda u dhintay laakiin gabadhan waxaaba khayr u ahaydba ninkan in lagu meheriyo because meherkeedii qof kaloo dhexlaya mesajir lacagtas dowladda qaadan lahayd laakiin hadda hantidiisii oo dhan wuxuu tacbayay dhulalkii uu lahaa lacagihii kaashka u yili kulli gabadhii waxay kusoo wareegeen caladuul gabadhii kusoo wareegeen magaceedii kusoo qormeen wiilkiina waxaa la xiray 3 bilood oo xurmada meydka ah 3 bilood kadib waa iska baashaalayaan cidiina haddii kow iyo qaniyay noqdeen cidii masaakiinta ahaa oo iska faqiirka iska ahaa oo nolosha waxay cunaan la daaladhacayana ilaahay meeshaas uga soo qaaday marka ilaahay markuu rabo inuu meel kaa arsaaqo meel aan la filaynin uu kaa arsaaqaya ninkaas wuxuu ku madaxday gabadhaas in la siiyo wax kasta markii loo sameeyo u dhahaa abeed kuma siina gabadhaada ugu meher adiga lacag maalin xataa kuguma daraayo soo gabadhaan waxay ahayd tii asaga dhaxla lahayd ilaan qof kaleeto oo dhaxla muusan lahayn fiidiyeena maanta inta kusoo gabagabaynaynaa intaan fiidiyan la mid ugu kulmaynana waxaa idinku dhaafaa wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu